wixii warar news akhbaar meeshaada yes ka dheh laakiin hay iskuba aadinba muuqaalka xiga qaab nuucee ah ay shacabweynaha ku nool dalka Kenya hadday ahaan lahayd Kenyaanka hadday ahaan Soomaalida ay kaga falceliyeen sicir bararka ku imaaday hadday tahay dhanka shidaalka iyo hadday tahay dhanka maciishada inteeda kale haddaba waxaan idin la wadaagi doonaa shidaalka sarokac uu sameeyay dadka inta badan u kala goosha gobolada dalka Kenya hadday aad Mandera hadday tahay Wajeer dadka qaar ayaa gawaarida basaska raaca qaarkoodna diyaarad ayay u raacaan sida caadiga ah Mandera haddaba sicir bar intee leeg qiimo kor intee leeg ayaa basaskina ku yimid diyaaradayna ku yimid bal mid kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa sheekadan inoo dhigaya si aad adigana haddii ku qorshaysan yahay safar aad lacagta tikitka aad u sii diyaar garoodid aad sii qorshaysatidba walaa muuqaalkiisa ayro daawan dhibaatadii Iran iyo Mareykanka waana taabatay waana haysaa diyaaradihii Wajeer ilaa iyo Nairobi soo kala gooshi jiray ee dadka rakaabka shacabka ay raaci jireen waxaa lagu goosan jiray tikeradooda mar hore 10,000 ilaa 9,000 lagu goosan jiray isbuucii la soo dhaafay waxaa laga dhigay tiketka go iyo back 30,000 oo lacag Kenya oo go qofkii Nairobi aadayo oo bixinayo 15,000 oo lacag Kenya baasaskii wadadaasi haye Nairobi ilaa Wajeer sida ugu dhax shaqeynaaye mar hore waxa lagu raaci jiray lacag cadadkeeda ay tahay 2,800 ilaa 3,000 oo lacag Kenya ayaa lagu raaci jiray isbuucii la soo dhaafay kor ayay u qaadeen waxay ka dhigeen 4,500 xalay xidana shidaalka waa lagu daray dieselka waxa lagu daray 40 shilin oo shilinka dalka ah ayaa lagu daray wuxuu noqon doonaa 240 iyo gogo inuu noqon doonaan jecelahay halka petrolkana 28 lagu daray marka xaaladdu wax hagaaga haye malaha waa ka sii daraysa xaaladda waxa laga yaabaa maalmaha soo socdo diyaaradaha Wajeer iyo Nairobi isku kala goosho in qiimaha lagu raacay ay gaarto ilaa iyo 19 qiimaha dagaalaha saameynta ka dhasha falanqeeyo mar hore waxay sheegeen Afrika inay aad ugu badan doonto saameynta waan dareemahaynaa maanta waa dul taaganahay waqtiga la sheegay warwaani salaam waalaikum salaam waa wareey maanta sheekadu halkaas ay maraysaa dieselki iyo petrolki waa isku qiimo maanta marka hore dieselka loo baxsan jiray oo gawaarida dadweynaha dieselka lagu shubay hadda waa isku lacag maxaa la sameeynaya marka waxay noqonaysaa inaan meel loo safrin cidna maxay ahayd waxba qabsanin meel la aadin hadda sheekadu ay sidan tahay markan gawaarida waxa bakin baa la iska wada dhigi doonaa sheekadu meel xun bay maraysaa ilaahay naga qaboojiyo waa alla ilaahay xaaladuhu waa cabsi waxa laga baqayaa gawaari badan in la geli doono gabi ahaanba la iska damin doono baakinada in lagu dayn doono guud ahaan gawaarida kadib sarokaca qaaliga ah ee shidaalka ku yimid nolosha inteeda kalena qayb ay ku noqotay sarokaca iyo sicir bararka intaba haddaba dadka ka falceliyay waxa kamida ninkan Kenyaanka oo waliba si fanni ah kaga falceliyay wuxuu yiri waxaan la yaabay ayuu yiri haddii shidaalka dalka Kenya uu kaco wax walba way kacayaan raashinkii wuu kacayaa oo gaar raaci wuu kacayaa oo xanaaqi wuu kacayaa oo qorraxda kuleelkeeda wuu kacayaa oo bareesharkii wuu kacayaa oo xataa haddii aad tiri xaaskaaga kaalay oo ina kaxaysirtiina gey way kacaysaa hal shay ayuu ku tilmaamay gabi ahaanba inay suuragal ahayn inuu kaco kaasna wuxuu ku sheegay mushaaraadka ay qaataan shaqaalaha hadduu raashinka kaco mushaarka shaqaalaha ma kaco wuxuu yiri qorraxda kuleelkeeda xataa way kacaysaa kuleelkeeda ayaaba badanaya xilliga uu kaco shidaalka ilaa wala lugeynaa gaari cid awoodaa ma laha wuxuu yiri bareesharkii ayaa kacaya oo xanaaqi qofka ayaa kacaya xataa caayda way kacaysaa uu yiri caayda lagu caayin lahaa xataa way kacaysaa haddii aad xaaskaaga gurigaaga ka timaado tiraad kaalay ina kaxeeyo sariirta ina gey iyada xataa ma ogolo way kacaysaa halka shay wuxuu ku tilmaamay shaqaalaha in mushaarkooda gabi ahaanba uusan kacin waa fariin uu u dirayo guud ahaan dadka loo shaqeeyo